لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله رب العالمين waxaan rabnaa insha allahu inaan iclaamino oo aan ogeysiino dadka muslimiinta khaasatan dadka Soomaaliyeed oo qayrka jecel masjid markas ahli xadiis oo ku yaala Tawfiiq masaajid aad u weyn ah qaybtiisa hoose hal mar 1500 ku tuka karta masaajid aad u weyn macmuurna ah oo duruus kala duwan oo tafsiir xadiis fiqi luqo ay ka socoto masaajidkaas ayaa xoogaa dayacaad ka jirta waxaan rabnaa inaan dayactirno insha Allah haddii alla yiraahdo masjidka iyo guriga waqafka ah oo qabyada oo ku yaala oo masjidka awqaaftiisa kamid ah sidaas daraadeed masjidkaasi dadkii muslimiinta uga qayb qaataan aan ugu talagalnay iclaamkan inaan dadka gaarsiino waxaan rabnaa insha Allah haddii alla yiraahdo inaan kelimada koobaad siiyo Sheikh Ahmed Yare ku soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan kelmadeyda ku darsanaa insha Allah taala tabarucaada ama codsiga loo sameynayo masjid ahli xadiis oo yaaqshid ku yaalo aadna masjid runtii u weyn ah aan ku naqaano dacwo iyo khayr iyo اعتقاد في عن أو صحيح الوفافيو يصلى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد كاس أو أي رنتي كم وقته ضيعات أي كم وقته أو ماشي كره بيه أي فريسنا يان سو شبه هدنا أي بيه كسود دادنا يان أو سداس أن لولت ككرين وقتيان أن لو عبادي سكرين حديثة iyadoo dhibaato la'aan aan lagu cibaadeysan karin masaajiduna dawlado iyo hay'ado iyo maqna waxa u maqan waxay tahay qofkii iimaan qalbigiisa uu ku jiro inma ya'muru masaajid Allah man aamana billahi wal yawmil aakhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaa'ika an yakunu min al-muhtadin dadka amiro masaajida oo hisan wa ma'nan ba u amiro waa dadka iimaanka uu ku jiro waaye dadkaas muuminiinta lala soo hoos galay nabiyana sallallahu alayhi wasallam masaajida waa amray meelaha waliba la degan yahay xaafaduna xaafad la degan yahay waaye oo camiran oo jamaaca leh waaye oo dalabatul cilmina looga faa'iideeyo dadka guudna looga faa'iideeyo waaye xadiidkii sunanka ku jirana wuxuu ahaa أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف مساجد إن لقد صحافها أي أمرين النبي صلى الله عليه وسلم لنا نظيفيه لنا أدقيه أديق إيا نظيفنت إيا وحاكرسي هرأيو باسمه هرتينو تاغيه هيو ديقا أيسان قلينينو بيه رابك إيا dadka uu ka celinayo oo iyo isla markaasna qoraxdii uu dadka ka celiyo iyo awqaaftiisii inay hagaagsan tahay waxyaabahaas marka oo dhan baaba kaba sii horeeyo dhismihiina ka mid ah aadna wax masaajida fadaa'isheeda waa la maqlay wax badan ma isu sheegayno man bana lillahi baytan bana Allahu mithlahu fil janna qofkii ilaahay dartiis bayt u dhiso buyuuda ilaahayna dhulkan dhaxdiisa waa masaajida qofkii bayt ilaahay dartiis u dhiso jannada mid isagoo kala ilaahay uga dhisaa riwaayaadka qaarna ilaa waxay gaarsiinayaan babuul shimbireed wax la eg sida kaliya lagu macnay karana waxay tahay qofkii ka qayb qaato oo ay uga soo aado wax yar xataa ay uga soo aado intaas yartaa ilaahay ma ka dayacayo marka masaajidkaas in la camiridiisa iyo ka shaqayntiisa iyo dayactirkiisa in loo istaago dhammaanteen aan u istaagno maal ahaan qofkii uga qayb qaadanayo qofkii
weji iyo shafaaco uga qayb qaadanayo oo dad gaarsiinayo annaga hadda aanan gaarsii karin oo kale sii gaarsiiyo wax ka soo qaado lacagaa la qaadaa mateeriyaalihii laftiisa la qaadaa oo shamiintadii iyo mutaneelkii iyo birtii iyo rinjigii iyo wax allaale wixii aalaad wax lagu dhisoo dhan qofku waa keeni karaa lacaguu keeni karaa meeshaas marka yacnii culaysna yaan loo arkinoo masaajiddu tiraday ka bateen iyo yaan la dhihin waayo wax uun annaga danteenna ku jirto waayo waxa uun naloogu yeeraayo mar walba qofka markuu ganacsada yahay ganacsi cusubaa soo kordhay suuqa marka la yidhaahdo yimid dhib uma arko dhibna kama dareemo kanna waxay ka mid tahay ganacsiga weliba aan khasaaraynin watijaaratan lan tabuur waay waa midaan qofkii wax ku dhigto oo ilaahay xaggiisa wax u hormarsado wixii ilaahay loo dhiibta marnaba aan dhumaynin laakiin waxaad naftaada u dhiibto ama bani aadan u dhiibto waa un dhumayaan khasaaray faa'iiday u dhaxeeyaan laakiin midaani wax uun faa'iido keliya uun faa'iidadeeda ay soconayso waaye haddii ikhlaas lagu dhiso laguna dadaalo dadka hawsha wadana kulley dad aan ku naqaano ammaano iyo khayr iyo dadaal fara badan waaye marka waxaan ku baaqaynaa codkayga aan codka culammada ugu beerinaa masaajidkaas marka shafaacadiisa iyo ka qayb qaadashadiisa dhismihiisaba iyaan aad isugu tirtirsiinaynaa wallahu aclam sala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wala ali saxbi maasha allah jazaahu allahu khayr runtii waxii qof muslima kici lahaa oo qalbigiisa iyo himmadiisa ku kici lahaa wanaagga sheekh axmed yaraan loo yidhi insha allahu haddana kelimadda ku xigta waxaan siinaynaa sheekh axmed imaam الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد xooga ma nashaadsanio oo xoogaa riiraxyo waxba ay haya marka arrinta ku saabsan masaajidkaas masjid ahlilxadiid oo xaafadda ku yaala towfiiq waa masaajid muddo soo shaqeeyey haddana baahi weyn u qaba tarmiim iyo dayactir iyo hagaajin waa masjid masaajid ahlu sunnada ka mid ah oo khayr badan lagu fidiyo duruuso badan lagu akhriyo dad badan oo muslimiin ay ku cibaadaystaan xaafad aad u camiran uu ku dhex yaallaa waxaa raacsan awqaaf guri loogu talagalay masaajidka imaamkiisa ama khadiibkiisa inuu dego marka masaajidkana xoogaa dhibaatooyin badan baa ka muuqata guriga loogu talagalayna imaamka iyona isagana dhibaata ka muuqata marka dadka muslimiinta ah ee ilaahay la tijaaraysta khaasatan bishan ramadaanka oo khayrka ilaahay uu laaban laabo oo sadaqaadka uu ilaahay ajar badan ka bixiyo waxaan ugu yeeraynaa dadka muslimiinta ah waddanka gudihiisa ha joogeen bannaankiisa ha joogeen in uu qof walba wixii uu ka geli karo oo ilaahay kula tijaaraysanayo oo ah masaajidkaas tarmiimkiisa isagoo ah arrinkaas sadaqa jaari ah inuu ka qayb galo oo wixii karaankiisa ah intay ula ekaatoba uu ku biiriyo si uu u noqdo masaajid hagaagsan oo lagu cibaadaysan karo oo dhibaatooyinkii hayay looga qaadi karo marka qof walba iyo kartidiisa wax kastuu u baahan yahay masaajidku oo ah qalabka dhismaha ama kharash wax lagu dhiso marka dadka muslimiinta ah arrinkaas waxaan ugu soo jeedinaynaa bishan wanaagsan oo fadliga badan oo dadku ay ilaahay ilu tijaaraystaan in ay ka faa'iidaystaan mashruucaas ama mawduucaas oo qof walba karaankiisa qofkii kelimad ku biiri kara shafaaco ku biiri kara qofkii kharash ku biiri kara qofkii warkaan meelo kale u gudbi kara dhammaan ilaahay hal sahmi ayuu dad badan ajar ka siiyaa marka arrinkaas ha laga wada qayb galo ha laga wada faa'iidaysto dadka maaragtay u qumayaana waa dad akhyaar ah oo culamo ah ahlu sunno ah oo gacantoodu ay tahay gacan aamin ah marka arrinkaas sheekh iga horreeyey ayaan hadalkayga ku beerinaya hadalkiisii culamo dambena way iga dambayn doontaa hada wabillahi tawfiiq wasala allah wasalam ala nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbihi wasallam
جزاه الله الخير شيخنا شيخ الإمام intaas culummadu ay yidhaahdeen aan sii ayiidayaa insha allahu haddii alla yidhaahdo qofka fursadda uu haysto oo cumriga ma garanayo meelay la gaarayso in aad marka intaad nooshahay wax ka qabsato weeye cumrigaaga faa'iidadiisu inaan markaa waqti dambe gaarayna ma ogin ilaahay beydkiisaas inaan noolayno oo camirno oo intaas aan fursad u helno waa fursad qaali ah waana cumrigii oon ka faa'iidaysanay waana waxa baaqi noqonaya marka naftana laka qaado marka insha allahu dhammaanteen aan isku dayno hal qof hadduu dhisi karo qofkii qayb ka qaadan kara qof walba aan isku dayno inaan fursaddaas ka wada faa'iidaysanno ilaahay aan ugu taqarrubno ilaahay weynaa maalinaan u baahi badannoon maanta maalkayaga uga baahi badannahay uu ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala nagu abaalmariyo waxna farxad geliya ilaahayna aan u niyeysanno xifdigiisa adduunka balaayooyinka dhaca inuu nagu baalmariyo waalidiintii iyo dadkii dhintayna qofkii doonayo inuu wax u sadaqeeyo iyadana waa dariiqooyinka wax loogu sadaqeeyo kuwii u wanaagsanaa marka insha allahu fursaddaas aan ka wada faa'iidaysanno masjid alxadiidna aan dhisno insha allahu kelimadda qatinkaana sheekh cabdulaahi diiriye ayaan siinayaa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وحي كنت على مسجدك يا حواشيسا يا قرمتك وباهي هاي يا تاكورينت وباهي هاي يا هابينت وباهي هاي culummada ayaa ka warramay wax oo ziyaadaah oo aan ku kordhinayaah ma jiraan waxaan kaliyahoo maaragtay magaciisa masaajidka waxa hortiina ka muuqda ama shaashada ka muuqda xisaabaadkii ama arqaamtii bangiga loogu talagalay qof alla qoftii muslima inuu ilaahay agtiisa wax geysto raba waxaan leenahay arqaamtaas iyada ah wixii uu ilaahay dartiisa geysanayo ha ku tuuro ha ku soo rido waa maaragtay waa bangi salaam iyo bangi dahabshiil saan u malaynayo arqaamtoodii labaduba waa ku yaaliin marka halkaasaa insha allahu tacaala wixii haddee ilaahay agtiisa fadli ay ka leedahay iyo wanaagga ay leedahay culummada dhammaystiray khayr badan ilaahay ha siiyo subxaanahu wa tacaala culummadii dacwada oo culummadii beledkana ayagaa ah khayr badan ilaahay ha siiyo subxaanahu wa tacaala marka qadiyadaasi waxa weeye sida anigu weliba waxaan idinkugu sii darayaa masaajidka dhaawacyadaas la sheegay iyo dhibaatadaas la sheegay kuwo kale oo qarsoonna waa ku jiraan oo ay ka mid tahay berigii magaalada lagu soo duulo muqaawamadu ay jirtay in manaarada nimankii xabashadaha ay ka dhigteen maxaa tidhaahdaa dhufays ay ka dhigteen oo galeen oo dhaawacyo fara badan ay ku yaalliin oo meelaha gobolkooda aad isleedahay amay bahashu soo dhacda waa manaarada masjidka ma garatay dhaawacyo badan oo saas ah waa ku jiraan masaajidka sidii waqtigaas badan oo uu soo boodo uu shaqeeyey sida sheekh axmed uu sheegayna waxa weeye wax dayactira laguma samaynin marka khayr badan allah idin siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii aad geysataan miisaankiisa ha idiin saaro culummadana ilaahay waxaan uga mahad celinaynaa dadaalka badan oo ay soo baxsheen iyo maaragtay iyo waqtigoodii ay maaragtay u soo hureen mashruucaas weynanka badan oo qiimaha badan oo diinta oo dacwada ah maxaa yeele masaajidda waa la og yahay maaragtay fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha ismu yusabbixu lahu fiiha bilguduwi walaasaali rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah waiqaami asalaat masaajiddu waa kuwa
arrinkaasoo dhan lagu sameeyo weeye oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis loo rafciyey oo loo kor yeelay in la kor yeelo oo la wanaajiyo oo maaragtay la nadiifiyo sida sheekhu u sheegay waa waxa mabaadi'da islaamku ay ku dhisan tahay oo diintu ay ku dhisan tahay mar labaad waxaan ku celinayaa jazaakumullahu khayran culummada marka raqamyadaas iyo magciisigaas waxaan rajaynayaa sheekh nuur inuu mar labaad maaragtay sii buuxiyo بسم الله الرحمن الرحيم ودماتي كلمتي علمadu ay ujeedadoodu ahayd inay ku soo gaarsiiyaan amalkaas khayriga inaad ka wada qayb qaadataan waxa la rabaa marka insha Allah akoonada meesha ku qoran oo kala ah bangu salaam iyo dahabshiil labadoodaas waa in looga faa'iideeyo oo lacagaha wixii qofkii ku tuuraya lambarka ama qofkii akoonka ku shubaya dahabshiil oo kaleeto waxa weeyaan eber 5 6 9 1 5 waxa ka horeeya xaraf da waa 00 waa eber 5 6 iyo 9 toban iyo 5 bangi salaam waa 3 konton iyo 2 toban iyo 9 24 raqamka oo ifi balaaska oo xawil hurmuud waa 4 afraad 7 waa 4 kan midka dahabshiilna waa eber 6 23 60 iyo 2 konton iyo 2 6 eber marka insha Allahu raqamyadaas shaashadaad ka qoran kartaan ha laga faa'iideysto halkaas qof walba ha uga soo qayb qaato qofkii ama shamiito ilaa kun ka badan loo baahan yahay qofkii shamiito iyo dhagax iyo caro iyo keenaya mutulaalna masjidku keeni karaa waana la soo xiriiri karaa lambarka shaxsan lambarka waxaan rabaa hawlwadeenka masjidka qofkii u baahda masjidka halay tuso oo asagu alaabtii soo rari lahaa lambarkan ayuu soo wici karaa eber 6 oo iska furaha waa 5 eber konton iyo 3 konton iyo 4 lambarkaasuu soo wici karaa qofkii raba maalan inuu wax keeno oo yidhaa masjidka halay tuso waa furuhu waa 5 waa konton iyo 3 konton iyo 4 marka raqamkaas hawlwadeenka sheekh xasan la yiraahdaa sheekh xasan diriye asagu soo wici karaa qofku masjidka inuu soo arko wixii uu rabay uu keeno taasna intaasna waa ku sii daraa wabillahi tawfiiq sallallahu ala nabiyina muhammad